مثلا صدح نبا waxa la yiri gaad noqdo gidaar bay istaagayaan gidaarka waxa ka dambeeya la yiri ilaaliye saddexda nin midi aad u gaabay waa nin aad u gaaban midina waa nin dhexdhexaad ninna waa nin aad u dheer ninka aad ka u dheer haduu istaago qoorta waa la dhaafayaa gidaarka waxna waa ilaalinaya waajibkiisana waa gudanaya ninka dhexdhexaadka ana wuxuu la siman yahay gidaarku la siman yahay waxoogaa haduu iscirib taago oo in yar lagu taageero waxbuu arkaya oo indhihiisu gidaarka waa dhaafaya shaqadiisana waa gudanaya ninna aad buu u gaaban yahay gidaarkaaba ka sareeyaba saddexdii nin baa waxa la yiri si ay waajibkooda u gutaan hal loo geeyo saddexdaan nin saddex kursi hal loo geeyo saddexdii kursi baa loo keenay ma cadaalad baynu qaadanaynaa mise sinnaanshaynu qaadanaynaa haddii la yidhaahda hal la simo macnuhu waa maxay waa nin walba kursi hal la siiyo wey saddex kursi baa la hayaa saddexda nin waa in la simaa mid iyo kursi haddii loo siiyo kii gaabnaa weli gidaarkii buu eegaya kii dheeraana kursigiisa markuu qaato gidaarkii kala badh buu la dhaafaya calooshii u tagaya gidaarka xaggiisa sare kii dhaxana waxa weeye caadi bay u noqonaysa oo toos buu wax u arkaya waa haddii la simo oo la yidhaahdo si siman ha loo qaybsado oo nin iyo kursigiisa ha la siiyo laakiin haddii la yidhaahdo cadaalad ha la sameeyo waxaa la odhanayaa ka dheere uma baahna waayo kursigan waxaa loo keenay inuu wax arko hadduu wax arkaya kursi uma baahna kii dhaxana waxaa la odhanayaa xabad baa ku filan si uu wax u arko ninkii gaabnaana labuu u baahan yahay baa la odhanaya dabeedna sidaasay cadaalad ku noqonayaan saddexduba si toosay wax u arkayaan tusaalaha waxaad ku fahmaysaa sinaanshuhu mar walba inaanu cadaalad ahayn